dadka daawanaya oo walaalaha ah waxaan u baahanahay inay gurma degdeg ah ka helo walaalahayna waxaan ka codsanaynaa inay nacaawiyaan. Dahabo Maxamed Xalane waa maamo Soomaaliyeed oo waayeela lugaha ayay ka xanuunsan tahay socodkuna waa uu ku adag yahay waxay guri ku haysaa Cabdi Caanood Gaabane iyo Asad Caanood Gaabane oo ah labadeeda wiil Caanood Gaabane oo ah aabaha dhalay Cabdi iyo Asad iyo 9 caruur ah oo uu dhalay wiilkeeda Cabdi muddo 7 bilood ah ayay ku noolaayeen halkan oo ah kaamka buurta ee magaalada Garowe waxayna ka soo barakaceen deegaan hoostaga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Ani waxaa la yiraahdaa Dahabo Maxamed Xalane ishaan ku todobaan joognaa waxaan ka nimid magaalada Beledweyne marka halkaan waxaan joognaa 7 bilood tuulada Beledweyne u dhow dad iska joogaan waxa aan haysanayna markii hore kor reerka waxaa ka hayn jiray oo nacaawin jiray oo wax la siin jiray oo aabbaha u leenahay oo u leenahay ninkaan inda beeray kolkuu inda beeray ilmihiina loo dhigay goday ilmihii waa ka soo qaadayay waa iska soo hayaamay Beledweyne ugu yimid Beledweyne meel ceshataan weyn waa iska soo hayaamay meesha aan saan u nimid 7 bilood aan joognaa. Asad waa ninkaas idiin muuqda waxa uuna la nool yahay xanuun dhanka maskaxda ah. Caanood Gaabane oo ah aabaha Asad iyo Cabdi waa waayeel ka xanuunsan dhanka maskaxda sida ay ii sheegtay maama Dahabo. wiilkaas waa iga waalan yahay kan waa iga indhaa iyaha odoga ashma ahan anigu curyaan ahay 9 caruur iyo 4 waaweyn intaas hadda meesha ku joognaa wax xaq ilaahay inooga yimaado maahan waxaan haysanaa lama ah dad iska tabaayaysan oo iska tabariya wuxuu haysan hanti haysan caruurta wiilkayga indhaha la ahdara 6 sano indhaa wiilashayda kale ninkaas waalana ila joogo iyo mid kale oo waxba haysan oo waxtigaas dhexdooda. Cabdi Caanood Gaabane oo ahaa qofka kaliya ee caawin jiray qoyskan danaysan 6 sano ka hor ayuu araga beelay waxaana ay dantu ku khasabtay inuu dhex fariisto caruurtiisa. Ilaahay baa iskale wax walbana Ilaahay baa keenay wuxuu alla keenay cid lama dareemi karto kulay aan iska indalaanahay intaan mujtamaca meesha joogtana kulay ana gacanta ku hayay intaan aniga alxamdulillah la xartaam ay hayeen waxay cunaan iyo waxay xirtaan iyo waxay hugsadaan midna kamayna fikir jirin maadaama maanta aan soo dhex fadhiisto aniga indhala ahayna waa alxamdulillah Ilaahay baa mahad iskale afkaana Ilaahay baa kala jeex wuxuu saaqiyo ummadiisa habeenkay xabiibiyihiin Ilaahay qalbiga ugu jiiday oo وحكمي وحي هبينك واحد عون لهذا هبينك قاد لهذا وقت قادي هبينك إلهي كوك صينا وارعون يسار أنا جنا هذا دكاس ليش جوجو سكا تنيره سكا تبرد تيره وحبه يسون نو عالم وإذا حنوسنا عريان أبه يودي مكلوب جو أنا جا عندنا ويلكير لشوا عالم طبعا عرورهم أنا جا أبه ضانه إنتاس مركز ده إنتاس عن هالكام قوة ضمننا مركز 9 kan ilmood ee walaalaha ah waxa ugu weyn 17 sano jir waxaana ugu yar 3 sano jir hooyadii dhashay waa isaga tagtay kadib markii uu indhaha beelay Cabdi oo ah aabaha dhalay caruurtan sida ay ii sheegtay maama Dahabo Maxamed Xalane. hooyada kolku indha beelay iska dhigtay iska dhaqaaqday tilku indha qaban raadsan waa 13 qof waxaana dhamaantood ay ku nool yihiin qolkan oo lagaga kireeyay lacag dhan 500,000 oo shilin Soomaaliya hase yeeshee ma jirto cid ay kaga xisaabtamaan bixinta kirada qolka 500 bishi oo Soomaaliya waxaan wiilkayga qoxotiga deganaa gurigan ijaaray hadduu ijaaray ijaarka xataa waa awood waayay bishii ugu dambaysay bishii ka horreysay bishii saddexaad buuxaa bixisay bishii ka dambaysay wiilaa naga bixiyay haddana bishaan socota kuladana lagu leeyay ma haystaan wax ay cunaan wax ay cabaan caafimaad
wax ay gogladaan waxbarasho iyo wax kasta oo nolosha aasaas u ah. halkan ayay qorraxdu ugu soo baxdaa uguna dhacdaa. islaamkaas qoftii na barin karta waa na barisaa wax kaloo nacaawiye ma jiraan. hadda daraad kolkaad noo imaanayseen 2 cawo 2 maalmood ilmahaas dab umaanashay halkaasi daraad isku kala bixiya isaas boga dhulka u dhiga. mid ka mid ah haweenka dariska la ahaa qoyskan ayaa wixii ay awooddo ku caawin jirtay balse hadda waa ay geeriyootay. gabadhii dhimatay Allah u naxariisto. waa dhimatay hadda. waa gabadhaan dariska aan cid kasta oo muuqaalkan aragta waxay qoyskani ka codsanayaan inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan. dadka daawanaya oo walaalaha ah waxaan u baahanahay inay gurma degdeg ah ka helo oo islaamnimo leh oo asxaan leh oo walaalaha ah ay waxay qabtaan uga baahna. dadka walaalahayna waxaan ka codsanaynaa inay na caawiyaan. caawinta waa la is caawiyaa bilaadanna la isku caawiyaa. annaga ma kala jecelin wax walba ay ahaataba laakiin alla ninkii na caawinaya annaga waa walaalkay. marka waxaan codsanaynaa in nala caawiyo insha Allah biidnillaahi alkariim. waa idiga rajaynaynaa walaalahayna inaan caawisiin. shukri muuse xirse waxa ay daris la tahay qoyskan waxaana ay si dhow ula socotaa xaaladda qoyskan oo ay ka warbixinaysaa. intii aad dariska ahaydna halkan ay deganaayeen xaaladoodu ma sidan bay ahayd mise waxaa jira marar ay dhaantay? maya sidoodaas ahayd waxay maray dhaantay oo aan waan arkay mid jibatay maalintan darisnay reeraha dhibaatadooda sidaas ahayd. wax islaam ilaahay uga soo qaado maahana soo dhasa maahana waxaan tii oo iyagu adeegsanayeen oo soo galaysay ay haysteen ma jiro.